بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله كبر تجويد كسيفود 10 كواد براتيكو قيبتان waxaan ku qaadayna hordhac waa maxay tajwiid in saxan loo aqriyo quraanka sida marka inaan ka taxadirno makharijta iyo sifaadka xuruufta iyo sharciyada aqrinta koorsadan 10 kood 2 iyo 3 waxay kormarayaan shuruucda tajwiidka 10 kooba 2 3 baana waxay dulmarayaan baraatikeenta shuruucda tajwiidka ee suuradaha yaryar marka qaybaha aada waa shuruuc qaybaha baadana waa baraatiko xitaa haddii aadan baran shuruucda isku day sida casharadan lagu baray inaad ku celceliso insha Allah waxaad fulinaysaa shuruucda adigoon ogeyn xitaa qaybaha baada waxaan ku siinaynaa talooyin tajwiid ee kooban insha Allah waxaad kaloo xasuustaa markaad aragtid qoraal carabi ah sadarka koowaad wuxuu ku siinayaa xuruufta meelaha ay dadku ku dhacaan gafka xagga makharijta sadarka labaad wuxuu ku siinayaa sifaadka iyo qawaacidda meelaha ay dadka badanaa gafkoodu ka dhaco aan qaadana talada koowaad ee tajwiidka haddii ay makharijta xuruufta aayad gudaheed ay kugu cusub yihiin dhageyso aayadaas 10 jeer sababtuna waa si ay maskaxdaada u hesho codkaas si saxan waa tan sida uu inanka carabka ah u barto marka koowaad uu dhageystaa erayada 100 jeer markaas kadib ay maskaxdiisu qabataa marka ka soo qaad dhageyso a'uudu billah 10 jeer intaadan dhihin ka hor talada labaad ayaa ah inaad kor u qaadi kartid tajwiidkaaga ilaa xad adigoo dhageysanaya qaari khabiir ah bis inaad ku celcelisid isla sidii uu qaari u akhrinaya adigoo qaari la socdo labada jeer iyo qaari kadib inaad ku celisid waxay hagaajinaysaa khaladaad ku jiro akhrintaada talada saddexaad ee tajwiidka ayaa haddii ay ku dhibeyso akhrinta aayad u kala jajabi aayadaas erayo kadibna hal u akhri haddii markaa erey kugu adkaadana xuruufta isku xirxiran hal u qaado waa maxay xuruufta isku xirxiran waa unug ka kooban hal cod oo shaqal leh ka soo qaad alxamdu waxay leedahay 3 xuruuf oo isku xiran marka kadib baraatikeeyo xuruufta isku xiran markasta wax ku dhimaan ka soo qaad alxamdu dhexdeeda waxa ku dhibaysa ku dhawaaqida xam marka xamdu hagaajitaas kadibna ku soo coynta dhiman jazakumullahu khayran wassalamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh fadlan booqo www.understandquran.com koorsooyinkeena kuwa oo kala ah aqri quraanka bara tajwiidka iyo fahamka quraanka iyo hal barasho ah jazakumullahu khayran wassalamu alaykum